madax careysan ayaa maanta ishorfadhiisatay kulankii qadada ahaana waa lagu soo kala tegay ugu dambeyn Saciid Dani iyo Axmed Madoobe oo qadadooda watana waxa ay gudaha u galeen hoteelkii Dekaale ee qadada loogu sameyn lahaa khilaaf ayaa wali taagan gogashiina wali la isku raacin waqtiga rasmiga ah ee ay furmayso mucaaradku waxay u muuqdaan in xilligan ay ka qoos baxayaan ama xitaa ka quldareynayaan xaaladda guud ee siyaasadeed ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxda Jubbaland iyo Puntland oo maanta taariikh kale oo cusub ka dhigay gudaha hoteelka Dekaale ee Muqdisho wararka ugu dambeeyay ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa shirar gaar ah oo caawa bilaabanaya oo waliba qaarkood hadda ka socda Villa Soomaaliya ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa wararka ugu dambeeyayna waan idin haynaa saaxiibayaal ee soo dhawaada haddii ay tahay markaa kugu horeysay ee aadna soo booqato waxaan ka codsanaynaa inaad saaxiibada la sii wadaagto muuqaalkan qaybta hoose ee faaladana aragtidiina nagula wadaagtaan sidoo kalena meel dheer la gaarsiisan naguna soo biirtaan markale soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilownay maanta waxa dhacay kulan xasaasi ah oo qada ah oo ay wada yeesheen madaxda Villa Soomaaliya oo uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay wehliyaan taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale taliyaha amaanadaade dhinaca kale xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo si weyn loogu yaqaano difaacidda iyo taageerida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waxa shirkan hogaaminayay madaxweynihii hore ee dawladda kumeel gaarka ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaase wehlinayay ra'iisul wasaarayaal hore Maxamed Xuseen Roble Xasan Cali Khayre Saacid Shirdoon iyo xubno kale oo iyagana golaha ka tirsan labadiisa aqal intaba oo xildhibaano labada gole baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka tirsan ay wehliyaan isla sidaas oo kale kama marnayn labada madaxweyne maamul goboleed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxay ahaayeen madax kala careysan kala shakisan sidoo kalena kulankan qadada ahaa isugu yimid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uusan imaan waxa howlka uga soo horeeyay ama goobta shirka madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxda dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo isla markiiba gudaha u galay howlka kadibna waxa xigay ra'iisul wasaarayaashii hore iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya walina si weyn markaasi uga soo horjeeda nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dalka ku hogaamiyo arintaas waxa ay keentay in dhinacyadu markii ay gudaha u wada galeen kadib uu yimaado taliyaha nabad sugidda ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya iyo ugu dambeyn madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulan qaatay muddo ku siman 5 saacadood ayaa dhexmaray dhinacyadaba kuwaas oo waliba isugu jiray kulan qada aha oo waliba waqti kooban oo la qadeeyay kadib waxa la isku tagay miiska wada hadalka iyadoona xubno la sheegay inay markaasi qayb ka ahaayeen kulanka markii dambe ay isaga soo baxeen sida xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale Saacid Shirdoon oo kulanka kadib banaanka uga soo baxay howlka shirka uu ka socday waxa sidoo kale xigay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxda dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isku soo haray muddo kooban kulan socdayna ugu dambeyn waxa kulanka isaga soo baxay madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isu soo reebay markii dambe saddexda madax ee kala ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland waxa taasi ay keentay muddo kooban in uu kulanka socday laakiin wax ay si toos ah uga wada hadleen aanan la ogeyn markii dambana waxa la arkay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Madoobe oo howlka shirarka ka soo kala baxaya iyaga oo ugu dambeyn wax faahfaahin ah aanan laga helin kulankaasi sidoo kale ugu dambeyn waxa kulanka ka soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Mahad Maxamed Salaad oo la tilmaamay in uu mas'uul ka ahaa in xubnahan mucaaradka gaar ahaan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay tagaan hoteelka Dekaale ee magaalada Muqdisho oo si weyn madaxdan ay uga kala shakisan yihiin intooda badan in shirka lagu qabto Villa Soomaaliya ama xitaa lagu qabto guriga ay degan yihiin madaxda Jubbaland iyo Puntland oo la isugu tago halkaasi Dekaale oo xeendabka xalana ku yaala ayaa maanta ugu dambeyn la isugu tagay lamana oga in lagu heshiiyay in la isugu tago Villa Soomaaliya in kale laakiin wax walba waxay cadaan doonaan maalmaha soo aadan madaxtooyada Soomaaliya oo kulankaas war ka soo saartayna waxa ay sheegtay in uu ahaa kulan qada ah oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la qaatay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed oo uu hogaaminayo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ugu dambeyn waxyaabaha looga hadlay ay ka mid ahaayeen xaaladda guud ee ammaanka dalka xaaladda siyaasadeed iyo in la isla soo hadal qaado ama la isla meel dhigo
arrimaha la xiriira qabsoomidda gobasha uu ku baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud gaar ahaan ay ku dhawaaqday xukuumadda Soomaaliya. madaxdan waa ay kala shakisanaayeen markii horeba Puntland iyo Jubbaland waxa ay hoteelka Dekaale la tageen qadadoodii iyaga oo wata taasi oo muujinaysa in madaxdu meel adag ay kala taagan yihiin isku soo dhawaansho wax la yiraahdaana xilligan uusan jirin oo shakiga ay kala qabaan uu sii balaartay. tani ay timid ama kulankan uu yimid kadib markii taliyaha nabad sugidda uu la kulmay madaxda Puntland iyo Jubbaland iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed taasi oo ugu dambeyn uu damaanad qaaday in amnigooda uu isagu xaqiijinayo ama sugayo. waxaana meesha laga saaray guud ahaan in kulankan qadada ah uu ka dhaco Villa Soomaaliya ama hoteelka Airport Hotel lagu magacaabo oo ay degan yihiin madaxda Jubbaland iyo Puntland. kulanka ayaa lagu soo kala tagay iyadoo wax war ah aan laga soo saarin warbaahintana aan xog faahfaahsan la siinin. xildhibaan Cabdullaahi Carab oo kamid ah xildhibaanadii goobjooga oo ah kulanka oo markii daba banaanka u soo baxay ayaa warbaahinta u sheegay in kulan qada ah ay madaxdu golaha mustaqbalka ay la lahaayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa iyo haddana wax rasmi ah oo looga hadlay oo arrimaha doorashooyinka quseeya iyo masiirka guud ee dalka quseeya aanu jirin. sidoo kalena uu sii socon doono kulamo gaargaar ahna ay yeelan doonaan xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba Villa Soomaaliya. waxaa sidoo kale jira saaxiibayaal khilaaf kale oo la tilmaamayo in uu ka dhex jiro xubnahan oo ah gogasha lagu baaqay 1 bishan aynu ku gudi jirno ee Febraayo oo ilaa iyo hadda aanan qabsoomin. sidoo kalena si weyn dadka Soomaaliyeed ay uga dhowr sugayaan xaaladda guud ee siyaasadeed ee dalka iyo waxa madaxdan ay doonayaan in markaasi ay ku heshiiyaan. hubanti la'aan siyaasadeed ayaa wali jirta meelo badan oo kamid ah dalkana waxaa laga dareemayaa culeysyo dhinaca abaaraha ah kuwaas oo dadka Soomaaliyeed ay qeyladaan xoogan ay ka muujinayaan. isla sidaas oo kale madaxdii dalka iyo guud ahaanba siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa ku heshiin la doorashooyinka dalka iyo halka loo jihin lahaa xaaladda siyaasadeed ee ummadan Soomaaliyeed. sidoo kale madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa isagana ka qayb gelin kulankan oo ahaa kulan inta badan ay isugu yimaadeen xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale kuwa muxaafadka. madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale taliyihiisii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa banaan joog ka ah kulamadan dhacaya ee u dhaxeeya Villa Soomaaliya iyo xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed. Farmaajo marka la fiiriyo waxa ay isku dhacsan yihiin xubnaha horey isagu uu u maamulayay oo ay ka mid yihiin taliyaha nabad sugidda ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoo waliba inta badan ay xubnahan ku tilmaamay madaxweyne Farmaajo inuu yahay nin dambi ka galay ummadda Soomaaliyeed halka dawladdiisa markay xilaalka haysana dhibaatooyin xoogan oo waliba culeys amni uu kala kulmay xubnaha hadda talada dalka haya oo ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. Farmaajo lama oga sida uu markaasi isagana u wajihi doono iyo la kulanka iyo inuu fursad u helo inuu la kulmo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale saraakiisha kala duwan ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Fahad Yaasiin xisbiga uu ku jiro ee haybad qaran waxa xilligan shirka ku matalaya musharax madaxweyne Saacid Shirdoon oo kamid ah xubnaha ugu cadcad ee xilligan dalka markaasi ku sugan sidoo kalena siyaasiyiinta mucaaradka ah ee waliba sida weyn uga soo horjeeda madaxweyne xasan sheekh maxamuud.